بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مال والبوعة دونيدا كجوكتان مالين وناكسن هاوين وناكسن هاد بحيلك يكوتا هاي كسو دو قصار جرافيكس iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sidee loo design gareeyaa logo photographic waxaa laga yaabaa inaad tahay photographic misna ku shaqaysta xirfadaas laakiin aan nasiib u yeelanin inuu hantiyo ama samaysto professional logo design بعد قصار جرافيكس وحي ku hadiyan doonaan inaad gacantaada ku samaysato logo design oo professional ah hadii aad daawato muuqaalkan iyo muuqaalo kale xiiso badan saad uga faa'iideysato fadlan channelkan subscribe garee gambalelka furo saad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelino bartaan qosar graphic sidoo kale inta la wadaag saaxiibadaada aad ku tuhmayso in ay aad ugu fiican yihiin ama ay ku shaqaystaan xirfadan photographic waxaan kula wadaagi doonaa xog aad ugu muhiim ah inaad wax badan ka ogaatidna aad jeclaan lahayd marka hore waxaan wax badan kaaga sheegi doonaa waa kuma photographic sidee ku noqon kartaa photographic professional ah sidee ku samaysan kartaa logo photographic oo professional ah ugu dambeyntii waxaan si practical ku tusi doonaa sida aad ku samaysan lahayd logo photographic oo professional ah waxaan idin la socodsiin doonaa anigoo ah Yaxya Cabbaas Ibrahim engineer Gosara muuqaalkii oo dhameystiran la socod wanaagsan markaan meeshan taaganahay waxaan sameynaynaa waxyaalo xoogaa oo introduction ayaan sameynaynaa sidaas darteed inaad la socotid isku day oo aad mid soo qaadatid si xogtaan kula wadaagayo aad inuu gareysatid waad ku maasan tahay la socodka muuqaalada aan soo gelin barteen YouTube-ka fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe garee muuqaalkan like share haddii uu ku caawiyay gambalelka furas aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena aad baan kaga mahadcelinaynaa mar kale mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan introduction yar idin la wadaago oo ku saabsan photographiga iyo cashirka maanta aan idin wado wuxuu ka hadlayaa photographic si kooban ah waxa idin soo diyaariyay anigoo Yaxya Cabbaas Ibrahim Gosara haddii aad u baahan tahay inaad kula saaxiibto ama jeclaan lahaa inaad kula saaxiibno social media sida Instagram, Twitter iyo Facebook inta wadan igala soo xiriiri kartaan sidoo kale waxaad igala soo xiriiri kartaa WhatsApp oo aan wax badan kula wadaagi doono haddii aan saaxiibo dhow noqono waad ku maasan tahay la socod wanaagsan waxaan rabaa inaan wax kaaga sheego waa kuma photographerku waa artist laga yaabo Soomaalida kaliya in artist uu taqaano shakhsiga qofka sawira ama darbiyada wax ku sawira laakiin photographer artistuhu waa qofka leh waxa nashqadeynta leh ayaa artistaha laha photographerka iyo graphic designerka iyo videographicu waa artistaha ay ka mid yihiin photographerka waa artist camerista wuxuu adeegsadaa farsamooyin iyo xirfado uu ku qaadayo sawir asigoo adeegsanayo isha markaan leeyahay waxay tahay qofka photographerka ah wuxuu dooranayaa positionka ugu habboon ama booska ugu macquulsan ee sawirka ka qaadi lahaa si aad u dooratid booska ugu macquulsan waa inaad isha la raacdaa meesha ugu habboon ee sawirka ka qaadi lahayd dabcan boontigaas waa elefantiin amareyna haddii la dhaho yaa photographer waxaa ku jawaabi kartaa qof walba oo leh xirfad camera oo ku isticmaali karo misana adeegsada farsamooyin iyo xirfado kaasoo ku qaadi karo sawirooyin asigoo adeegsanaya leedahay ishiisa si uu u doorto booska ugu saxsan ee sawir laga qaado photographer halkuu shaqada bilaabaa iyo uu shaqeeyaa waa isweydiinaya mootahay haddii aad photographer tahay yaa u shaqeynaysaa tani waxaa laga yaabaa inay kugu soo jirto ama maskaxdaada ku dhacsan tahay maalmaha ciid oo kale iyo meelaha dalxiiska kale dadka yimaada inaad sawir ka qaadid markaas aad ahayd photographer tahay maya photographerku waa sawir qaadaha waa midka sawirka qaada macaamilkiisa ka qaada sida dadka kale dalxiiska isku yimaada haddii aad dadkaas ka qaadid photographer lagu dhihi karaa sidoo kale goobaha dalxiiska ah ee dadka isku yimaadaan maaha dadka ma ahan goobaha dalxiiska ah sida xeebaha kale gobolada kale meelaha asidooyinka kale meelaha waaweyn ee caruurta lagu ciyaarsiyo kale
haddii meeshaas laftigeeda sawirka qaadid photographer lagu dhigi karaa sidoo kale waxaa kamid ah cuntada kamid oo kale meelaha muuqaalada waaweyn lagu soo bandhigo sida fantasiyaha oo kale sawirada laga qaado photographer la dhahaa marka waxyaalaha qaban kartid haddii aad noqotid qof photographer ah waxaa samayn kartaa macmiilkaaga ama qof aad oo shakhsi ahaado ha ahaado dad aad u sameynaysid xayisiin ganacsi oo sida dadka meelaha dalxiisaas iska leh ama goobaha dalxiisada iska leh inaad sawir u qaadid sidoo kale gabdhaha ama dadka cunto karinta ku fiican cuntada kariya inaad sawir u qaadid kaliya ma ahan qof ku soo wacday gabar ama wiil na sawirka qaadid photography laguma dhihi karo sidaas darteed photographerku si aad u noqotid qof professional ah waa inaad hab fikirkaaga photographiyeed aad wax ka bedeshaa kaliya waa inaadan ku ekaanay inaad shakhsi wax ka qaadid camera haysta aqoontaad inaad kordhiso isku day inaad waxyaalo badan oo aad qabad isku day in hal abuur la yimaado isku day hal abuur waxaan ula jeedaa kaliya ma ahan qofka qaabka u sawiraysid ama aad u sawirtid inaad bilu sawirtid bil ka hor saa u sawiraysid inaad u sawirtid maaha waxaa la rabaa wax walbo update ah oo soo kordha oo photography ku soo kordha inaad la imaan kartid la rabaa okay sawirada la fiiri waxaan kula wadaagi doonaa sawirada ugu macquulsan ee photographerka sawirkan hadda waxaa kaga muuqda wiil yar oo dhul baadiyaha jooga oo xoolo kaxeenaya xoolada daajinaya xoolaha u daajinaya waa ari wiilka uu daayirahay sawirka hadda markaa fiirist aad buu u qoxoon yahay sawirka marka oo qofka sawirka marka la soo qofka soo qaado maanta soo qaado photographer soo qaado kaliya ma aha inuu siisku apply gareena ama siisku qof kasta marka uu ku siinayo ma aha waxaa loo baahan yahay hadhow kula wadaagi doonaa kan hor dhicin inaad taqaanid sida loo isticmaalo Adobe Photoshop ama Adobe Lightroom waxa la jiro software jiro oo sawirada lagu qoxay labadaas hadii aadan aqoonin ma lagu dhihi karo waxaa tahay qof photographer ama ma lagu dhihi karo waxaa tahay qof professional photographer si aad u noqotid qof professional photographer waa inaad wax ka barataa computer second waa inaad isticmaali kartaa Photoshop ama Adobe Lightroom labadaas midkood hadii aad teesid ama aad heli kartidba sawirkan ila fiiri sawirkan waa cunug yar oo sawir ciyaaraha sawir laga qaaday waxaa la karaa waa meel asi cunugan meel ciid oo kale ama dalxiis family soo baxeen sawir laga qaaday marka fiirso si fiican sawirka si fiican u fiiri sawirka ku muuqda saasadkaaga muuqda si fiican u fiiri wijiga wiilka iyo wuxuu ku ciyaarayo si kalida loogu jeedaa wajidaan background ka dambeeyana waa blur waxaa lahaa sawirka markuu isku darsan yahay allaha oo u maleysino shucaaca ku jiro shucaacana maahan hogaan daruur oo kale wax ku jirta ama loo maleeyo jida saas sawirka noocan ah waxaa lagu sameeyaa sawirkan brandka sawirka oo soo qaad kaliya maahan waxaa la keenaa Adobe Lightroom ama Adobe Photoshop kadib waxaa lagu daraa effect oo blur ah insha Allah ta'ala course ayaan ka soo diyaarin doonaa sida loo edit gareeyo sawirada photographyada ay soo qaadaan ama qofka hadii photographer yahay sida uu sawirkan aad u jeedaan saddexaad ee calanka Soomaaliga qofka qaaday sawirka calanka si kalira loogu jeedaa wuxuuna doortay marxalada ugu fiican ee positionka ugu fiican sababtoo ah calanka marna dhinacay u baxaya marna dhinacay u soo baxaya laakiin wuxuu doortay calankii oo daweeshi dhaxbartamaha ku hayso oo u maleyso in gacan lagu hayo kale ayuu doortay sawirka background ka wada dambeeyana aqoonsin kartid sababtoo waa blur horaan kugu sheegay hadii aadan wax ka fahansaneyn computer sidoo kale wax ka fahansaneyn software-da lagu edit gareeyo ama isticmaalaan ragga photographer professionalka ma sheegan kartid inaad tahay photographer professional saad u sheegatid waa inaad wax badan ka bedeshaa hab fikirka iyo hab shaqeynta wax ku qabatay ama wax ku soo bandhigtid sidee ku noqon karaa hadaba sidee ku noqon karaa sawir qaade xirfad u leh sawir qaadista okay marka tahay sawir qaadistu ama qofka sawir qaadaha ah waa xirfad u baahan inaad wax u baratid kaliya man u baahno inaad leedahay aqoonta waxbarashada asaasiga sida iskuul soo dhigad ama jaamacad soo dhigad uma baahno laakiin waxa qasab ah in aad qaadatid training ku saabsan sida loo isticmaalo agabka isticmaalista xiligaas
sidoo kale waxaad u baahan tahay in lagu tababaro sida iyo booska iyo positionka iyo doorashada ugu fiican sa u dooran lahayd dabcan sa u noqotid photographer professional ah waxaad u baahan tahay inaa ugu yaraan trainino qaadatid ama si free ku qaado ama galaas u fadhiiso oo koorsigaas lagaa gato laakiin muhiimaddu waxay tahay in xirfadaada si walba aad ku hormarin kartid inaad ku hormarisid waxaan kula wadaagi doonaa ilaa wadooyin fara badan oo aad ku noqon kartid photographer professional ah marka ugu horeysa waa qodobka ugu horeeya aan dhaho si aad u noqotid qof photographer ah waa inaad leedahay awood farshaxaneed horey waxaan kuugu soo dhahay photographersku waa artiste camera ah fahanti marka si aad u noqotid farshaxane kaamereed waa inaad yeelataa awood farshaxane yeelatid oo aad sawir ku qaadid waxaad u baahan tahay ama qofku wuxuu u baahan yahay inuu sokoobi karo doorashada ugu fiican ee sawir wax ku sawir ku qaadid oo kale tusaale ahaan oo kale waxaa tahay photographer xalfada laga wacday meel waxa lagu qaaday xalfada ay ka dhacaysaa hoola inta xalfada ka soo qayb gashay waxay galayaan photo group steepkii qaadileed maxaa sawirkaas ku qaadileed waxaa ku furan laba option in aad samaysid space fiican inaad qaadatid dadka photo group galayana inaad isku shaandeen samaysid tusaalaha soo qabo dad qaar gagaawiin qaar dheeriin okay inta gagaawan inaad fariistaan oo kursi u dhigtid inta dhaadheerna inaad istaagisid waxna aysan noqonin wax fiirsano balaaran laakiin gadaal ay sawirku dadka u bataan sawirka dadka nari oo badan lahayn inaad gadaal u bataan markaas waxay ka caawinaysaa in sawirkaaga shootkiisa uu meel position ah ama fiican ugu aado labo waa inaad fahansan tahay frame-ka ku habboon ee sawirka ku qaado frame waxaa lahaa muuqaalka oo sawirka uu noqonayo qaabka sawirka u dhacayo inaad fahansan tahay qaabka ugu fiican ee inaad dooran kartid inaad wax ka fahansan tahay la rabaa sidoo kale waa inaad abuurin kartid markaa ku dhahayo qofka photographerka waa inuu creative ahaada inuu hal abuur lahaada waa inuu asiga maskaxdiisa ka soo maaxata qaabka sawirka u qaadayo ma ahan in maalin walba hal nooc ah sawir u qaadid ma ahan ama qof qaabo ku barina maanta taagnaatid ma ahan inaad wax la yimaatid waa inaad wax soo yeedid waa inaad wax soo saartid waa ama waxayna soo kordhishid wax soo kordhin marka lagu dhahayo lama jeedo loo maxfuud qaabka u yaal shakal laga moodo waxaa laga wadaa qaab hab curin cusub maskaxdaada ka timaado inaad la yimaatid okay inaad la fahantiin arjeenaa pontigaasna soo kale inta inaad diyaarsan kartid iftiinka ku habboon sawirka aad qaadayso sawirka qaadaysa meel qorax baa ku qaaday iyo meel wax baa ku qaaday oo iftiin zaid ku jira man qaaday galab ma qaaday subax ma qaaday hool ma ku dhex qaaday oo iftiinkiisa yar ma qaaday dal ma ku daaran qorax ma taagantaa iftiinka caadi ma ku qaadaysa waa inaad dooran kartid kaamirada colorka iyo iftiinka ku habboon ee aad sawir ku qaadaysid dabcan pointkaasna aad buu muhiim u yahay inaad fahantid insha Allah taala warjeenaya waan isku dayi doonaa inaan ka soo diyaariyo tutorial kooban oo aan kugu sharxayo sida lagu noqon karo photographic professional qodobka saddexaad maxaa ka taqaanaa cilmiga computerka photographer tahay computerka ma fiicni miskeenis waxaa laga yaabaa in sawirka adiga aad soo qaaday oo ciladaad far badan ku jiro ciladahaas saad ugu bixisid waa inaad isticmaashaa software si aad u isticmaasho waa inaad taqaanaa computer waxaa waa silsilad si aad u sheegatid inaad tahay photographer waxaad u baahan tahay inaad taqaano sida loo isticmaalo kaamirada sida loo doorto colorska iftiinka frame-ka iyo doorashada ugu fiican ee sawirka lagu shido waxaa soo labeeya inaad tahay qof computer yaqaan saddex waa inaad tahay qof isticmaali kara software aan ku sheegay Photoshop ama Adobe Lightroom si aad intaas u noqotid waxa u baahan tahay inaad training martid ama free ku hel ama halaga gato muhiimadu waxay tahay in aqoontaada kobcisid waxna aadistid baada gosaar graphics waxay ka caawin doonaan in fikirkaaga xirfadeed ee graphica waxa la isku dhaw computer graphica in wax badan ka bedelo insha Allah taala si aad ugu xirnaato channelkeena fadlan subscribe garee gambalka fursad u noqotid qofku horeeya ee xili walba hela muuqaalada aan soo gelino fadlan muuqaalkan like garee asxaabtadan la wadaag hadii aad taqaan saaxiibka ama aad tahay ba aad photographer
la wadaag qof walba oo kula ah ama xirfadaas kula jira si uga waxaan u mahadcelinaynaa ka hor intaanan u guda gelin baraatikada saaxiib photographer ah oo muddo ku jira shaqadan aqoon badan u leh engineer Cadnaan lahaa insha Allah tacaala waxaan idin la wadaagi doonaa social mediagiisa barta uu ka isticmaalo Facebook iyo Instagram wuxuu ka howlgalaa xafiiska public relationka ee jaamacadda Simad waxaan jeclahay insha Allah tacaala in aad wax badan ka faa'iideysan doontaan soo kacsataa Photoshopka si aan shaqada u bilowno sayska waxaa qaadanaysaa sayska ugu fiican ee looga lagu design gareeyo waa jidaan waa 1024 resolutionka 300 ka dhiganaysaa backgroundka waa ka dhiganaysaa magaca waxaa u baxsanaysaa logo design photographic okay okay aso leedahay kana iskaherno okay marka meeshan aad taaganahay waxaa u baahan tahay kaliya in aad soo degsatid fonts waxaa insha Allah tacaala waxaan idin soo dhigi doonaa linkiga website-ka linkiisa idin soo dhigi doonaa waxaa lahaa thefont.com waxaa lagala soo degaa sawirada dhima lahaan linkiga kusoo dhigi doonaa qaybta descriptionka linkiga meeshaas ayaa ka dhowlan kartaa farta markaas aniga aan isticmaalayo iyo farar badan oo ka qurxoon oo ka macquulsan oo loogu talagalay hadba markaas fartaad u baahan tahay inaad isticmaashid anigu way soo degsan tahay oo farta waa soo degsaday kaliya shaqada ayaan gali doonaa marka hore sayska markaad soo dooratid intaan hadaa ila socotid waxaad dooranaysaa textiga waxaa leedahay waxaan rabaa inaan magac qaato magacaan qaadanayo waa engineer saaxiibkay ah oo photographer ah oo muddo ku dhawaad 10 sano ku guda jiray waxaan uga dhigi doonaa hadii insha Allah okay marka hore logo baliska aan saxsado hadda meeshan ay taagan yahay waxaan leeyahay farta nooceeda ka bedelaa okay waxaan leeyahay farta magaceeda waxaa lahaa taken font alternative labada marka labada nooc ay kala tahay midna waa iyadoo regular ah midna waa iyadoo bold ah markaas weeli kartid marka farta saan aad dooranaysaa xoogaha siiska haweeneynina okay siiska haweeneynina siiska markaa weynaysid hadda ujeedida farti hadaaya control 3 fartan hadda noo taalo iyo midaan hadda ku bedelayno oo ah way kala duwan tahay marka farta nooceeda waxaa lahaa taken by frontal the mode regular okay kaas dooranaysaa siiska ayaa badsanaysaa siiska markaa badsantid okay marka meeshan aad taagan tahay waxaad imaanaysaa fontigana imaanaysaa fontiga markaad imaatid waxaa leedahay resize type ayaa leedahay waxaan rabaa inaan jaro oo aan jaro sawirka qoraalka qayb aan ka jaro waxaan leeyahay intaan soo dul istaagaa okay marka waxaan soo qaada xariijimaha soo qaaday waxaa lahaa waa roll master waaye
maadaama aad tahay qof oo designer ah, designerku waa engineer, engineerkuna xisaab la-aan iyo siis la-aan ma socdo. marka inaad shaqada iska geshid waa laga fiican yahay, wax walba inaad cabir ku wadidaa fiican. waxaa kasoo qaadanaysaa marka haddii ku sukun lahayn waxaa leedahay control R, wuu kusoo baxayaa. kadib markaas waad dooranaysaa. okay, waxaad dooranaysaa toolkan oo loo yaqaano rectangular masker tool, oo waxaa lagu jaraa lagu selection gareeyaa hadba wixii aad u baahan tahay inaad jartid ama aad dooratid. kadib waxaa leedahay backspace ama del, control D aa leedahay. waxaan rabaa masterkan inaan meesha ka qaado, laakiin intaan ka qaadin waxaan rabaa inaan qoraal soo gashto. okay, qoraal la rabaa inaan soo gashto. adho photo grapher photography ade. okay, waxaan rabaa fartaan far ka bedelan inaan la soco. fartii aan ma doortay far ka duwan aad soo dooranaysaa. dhima lahaan haddii intaanoo far aysan kugu jirin. okay, markaa meeshaan taagan tahay oo sawirka saan aad soo jaratid, waxaad group gelinaysaa. waxaa qabanaya alt control aa qabanaya, waa dooranaya marka. kadib waxaad daawanaysaa folderkaan daawanaysaa, wuxuu ku noqonayaa group. marka magacaas kaga baxsanee loo complete iska dheh, loo complete. okay,
hadda loogadii way inoo diyaar design garaysan tahay. marka waxaan rabnaa in aan save gareeno oo xayeysiin aan u sameyno looga identify branding waxa la hayo u sameynayna way tusinayna si ku soo baxayso loogada. okay save gareeno waxaan ka dhigaynaa png looga. marka waxaan rabaa inaan ku dhaho looga marka la design gareynayo oo aragtay looga photographic na sawir saaratid waxaa loo save gareeyaa as png ahaan loo save gareeyaa. marka looga png oo save gareynaysa waa ku tusaa sida loo save gareeyo. waxaad tagaysaa folderkan oo file la tagaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa save as. waxaad furaysaa arrowgan yara furaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa png aad ka dooranaysaa. magaca uu kugu qoran yahay cala duul waa save gareynaylee. marka intaanoo file ah ku save gareysay large waa midkaan haddii aan ii dooran iso medium ah adiso smell leh marka mid daaratay dooran kartaa markaas aad save gareynaysid. okay waxaa soo gashanaynaa ilaa 2 3 4 sawir oo aan idinku tuso xayeysiin aan ku sameeyno. okay la socod wanaagsan. sawirada marka aad waa soo degsan kartaa qasab ma ahan ama sawirada aad qaaday aad saari kartaa. insha Allah taala fartaan aan isticmaalay labada farba waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka ka degsan doontaa. wixii comment-iga ama kugu soo adkaado way soo weydiin kartaa qaybta comment-iga. okay sawirkaan aan rabaa inaan branding u sameeyo marka ila soco step-yada aan marayo waa soo koobaya. hadda sawirkaan qaybtan yar ujeedaa qaybtan yar hadda taaganahay ujeedaan qofaa sawirka qaaday sawirka magaciisa yaal. marka waxaad leedahay waxa qof kale leeyahay loogis u saaran tahay aad looguma sii saaran karid. marka aniga hadda waxaan ugala jeednaa inaan cashir ku qaadana rabnaa inaan isticmaalno ma rabno laakiin sawirka meesha ka qaadayna. hadda wax ma kala ma sameynin toolkan aan doortay oo loo yaqaan spot heal brush tool waa dul saaray. marka waxaa loogu talagalay waxyaalaha dheeraad ku ah aadan u baahnayn inaa meesha looga qaado sida qorgaan oo kale ujeeda had qorgaan meesha yaalo shimbirtan hoosta baalkeeda hoosteeda yaalo inaan ka qaadaa rabaa ujeedaan. hadda qoraalkii meesha qoriga tifkiira meesha yaala oo qabax. marka loogada rabaa inaan xayeysiinta soo bandhigo ama intuso waxaan tagayaa folderka u yaalay waxaan leeyahay open with photoshop fura loogada magsaan noqotay. hadhow loogada magsaan kugu soo baxay majida waa qaad qaadan kartaa meesha aad ka geysan kartaa. marka waxaa leeyahay control a control x. okay waa soo dejinaa majidaan. okay ما شاء الله. لوجا وجدان سيدا كسو بحدي لوجا إن شاء الله تعالى وحنا هدين دونا انجينير أرقم والله فوتوغرافر مركا حنرجين دونا إن شاء الله تعالى إنه قنعين دونتو وتصير كواد يعني حرين كان كواد بجاج تواي marka sawir laga qaadayo bjaj oo meel taalo. marka sawirka hadda ujeedaan waa blur anisana ku soo dejiyo wax idin ku sameeyay laakiin waa inta soo doona sida loo sameeyo waa blur bajaj si kala lagu jeedaa background ka dambe. wow ma sha Allah. midkaan kalarka cadaankana ujeedaan oo highwaygan buundada ah sawirka laga qaaday soo ugu soo baxay. okay ya xirin horta siisaan ku daay hoos adiga. marka waxaan rabaa hal mar inaan inta saaro midkaan oo isheeg oo kamerada si taalana asina mid qurxoon arkaysaa. إن شاء الله تعالى tutorial keena maanta aan ku tusaynay sida loo design gareeyo logo design logo photographic professional design
insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad ka faa'iidaystay. fadlan muuqaalkan haddii uu ku caawiyey muuqaalka like garee channelkan